بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد إن شاء الله. waxaan hore sii wadanaynaa cashirkii insha Allah maanta waxaan dhammaystiraynaa barandadii aan wadnay. barandada markaa intaas haysid waxay u baahan tahay qaybtii hore ee frameka. insha Allah frameka markaan sameynayo waxaan rabaa labada frameba hal mar inaan ka wada faa'iideysto. saas darteeda marka waxaan leeyahay marka hore waxa ii tagtaa 2D igu noqo kadib barandadana u baahanahay. marka barandada waxaan leeyahay tan kale wax yar ay ka duwnaa doontaa laakiin inta iskiga egyihiin waxa way qaybtan iyo kan iyo qaadkaas xataa iska daa labada marka control shift d ida kadib geeskan iga qabo oo waxa ay sameysaa ilaa geeskan ii dhig. marka intaas marka ii dhigtid kadib waxa dhahdaa kan geeskan iga soo qabo ii soo celi sidoo kalena kan waxa dhahdaa caadigiisa ka dhig kadib slabka ziyaadaygu ah slabka inta ziyaadadaygu ah naftarkiisa iga jaro waxa soo qaadataa split intaan iska goode kadib trade iska dheh sidaas oo kale marka la dooro slabka oo split soo qaado mar kale hadana geeskan ka bilaab inta ku aadi kadib waxa dhahdaa intaas kalena ziyaadadana iga tir. okay intaas waxa ii soo hartay marka qaybtaas ay soo hartay intaas aan geystay. sidoo kale waxaan u baahanahay columnska oo aan inta keenay ayagana laba xabaan ka qaadana waxa leeyahay kan iyo kan ba ii qaad kadib control shift d ida kadib geeskan ka qabo. okay si toosana inta igu kan ka ii keentid kan waxa dhahdaa geeskan u bixi kaasna geeskan kale u bixi kan iga daa marka kadib kan control d geeskan qabo ilaa ku aadka geeskiisa geey sidoo kale escape ina dhahdid kan dooro hadana waxa dhahdaa control d geeskan qabo ilaa geeskiisa kale geey dib escape leh waxa dhahdaa wax yar oo ka dhax baxay. okay qabo marka control d geeskan qabo ilaa geeskiisa ii geey waa camera labadaas xabane waan geynay. marka meeshan marka ka soo maxay ugu duwnaan doontaa markaas qaabkii ay naqanaysa marka si fiican la soco. marka waxaan leenahay isla open window gaan u baahanahay laakiin maanta modelka waxa ka dibnay doon. okay point 3 caadiga ah hada halka mitir ah hada balaca bis oo kaliya iga bedel balaca waxa dhahdaa point 3 iga dhig. okay balaca waxa laga dhigay point 3 laakiin maanta model kala ku dari doonaa oo ina meeshan window open ina furaya waxaan ka sii dooro doonaa meeshan ay ku qoran tahay case in iyo case out ayaa labadooda jeega wada saari doonaa. kuwan waa frames oo yeelo doono hadda open window color ahaan waa kana colorka waxa loo leedahay metal price ama metal gold. okay kadib maxay dhahdaa centerka dhig. okay centerka qiyaas oo kaliya marka centerka dhigtid kadib waxa dhahdaa midkan asiga mid kale iga sii koobiyay control shift d leh inta waxa ii martaade asiga point 3 way si point 10 inuu ii jiraan raba marka ama point 2 inuu ii jiro afan point 5 ii jiraan leeyahay marka. okay point 5 marka ku jiro kadib maxaa ka bedelaysaa balaca point 3 ah dhahday dalkeeda waxa dhahdaa point 15 kala bar ka dhig soo ugu yaraado markuu ka yaraado kadib waxa dhahdaa hadana inta dhulka laga soo kacayna waxa ka dhigtaa point 5 leh oo point 2 ku dar dhererkiisana point kale waxa ka jirtaa point 4 ka jir waxay noqonay marka point 6. okay intaas markaa sameysid kadib waxa dhahdaa kanoo kalaan u baahanahay marka escape ida kan le dooro control shift d inta waxa iga sii kataa waxa leedahay inta u bax kadib waxa dhahdaa point 5 kanoo kalaan u baahanahay marka saa u heshid cirbada soo qaado kan click ku sii cirbada weyn tan yar soo qaado hadana kadib kan click ku sii kadib kaasi la ikaanaysa. okay aan aragna marka waxaan sameeynaa waa ka marka. okay waa ka marka somehow wax waa ka ziyaadi kartaa wax ka duwan waa sameyn kartaa minis anu waxa rabaa bis in qofka hal abuur noqon karo wax oo sameyn karo ana wax lagu sameeyo bisan ku tusi karaa laakiin wax kasta gacanti macquul ma aha. shaqadu way tar badan tahay qofka waxa laga rabaa asiga marka ala toolska iyo si loo isticmaal hadaa fahantid kadib waxa way qofka asiga laga rabaa marka hal abuurka qofka engineerka ah waxa laga rabaa inuu qof wax curin karo inuu yahay. okay intaas hadaan ugu gudbo waxaan rabaa marka inaan waqti ugu sii faa'iideysto frameska ama argooyinka waxa dhahdidba
geeskan iga soo qaad ilaa meesha ku dhamaada biigay kadib intii aad maanta elevation isticmaalaya okay hadaa jeceshaan section isticmaali karta ana elevation hadda isticmaalay insha Allah markaan banaanka and decoration ka isticmaalay ayaan section isticmaala si aan u kala faahno markaad kan isticmaalaysi kan hada isticmaalaysi farqi badan inuu dhaxeen okay kan aan doortay kadib waxa leeyahay right click kadibna open elevation alaya marka dhaho waa kana marka intaas markaa sameeyay kadib waxa leeyahay waa kana meesha aan wax dhigi lahaa okay meesha wax dhigi lahaa waa kana kan iyo kaas insha Allah marka ugu horeynta intaan ka bilaabo waxa leeyahay line ii soo qaad line ka soo qaadatid kadib geeskan ilaa geeskan ii saar meeshiisa ii jooji markuu ku istaagay kadib geeskan ka soo qabo waxa dhada balaca dhulka hoos inta waxa ugu soo degtaa 0.6 ama 0.7 ba kadib waxa dhahda inta la soo simo marka la soo simo kadib inta waxa igu soo baxda 0.15 iyo kor igu soo bax kor waxa soo aadaan cafan 0.10 ka dhig okay inta ii soo noqo waxa dhahda 0.15 kale okay inta markaan baxay kadib tokadan arga qaadana argagaas asigoo toosan ayaa waxa leeyahay 0.18 ay dheh marka okay half ka dhigo rubac marka ka dhigtid kadib hadana 45 degree sidaan ugu bax oo waxa dhahdaa oo baahanahay 0.16 aan u baahanahay okay tokadan half kaas oo kaliya aan u baahanahay okay hadda marka toos iga dhig kadibna 0.15 kala aan u baahanahay hafa kadib hadda line straight igu soo noqo kadib centerkan u baahanahay centerki asiga centerka naftirkiisa igu dhaji markuu kugu dhajiyo kadib waxa leedahay asiga ii dooro kadib control shift m leh kadib asiga qaba hadda inta igu soo hoos soo truus kadib laba xabo ku sameysmo laba xabo markuu ku sameysmo kana dooranaysa labadooda wada socdo hadan control shift g leedahay ii wada fur markay ku wada furaan geeskana qabanay waxa dhahdaa note iga dhig ii soo celi marka waxa ii soo celisaa marka asigoo toosan toosi horto marka toosid kadib waxa dhahdaa cabir bagleeshan iga soo noqo okay intaas markii lagu sameeyay kadib hadda waxa dhahdaa control g dheh marka kuwa isku xiran ka dhig marka isku xirmaan kadib control shift d dheh geeskan qabo oo geeskan ii keen okay kadib mid kale u baahanaadan control shift d geeskan qabo ilaa geeskan ii keen mid saddexaad u baahnaana control shift d dheh inta okay geeskan ka qabo kaas ii geey marka okay kan waxa dhinaaday ku maaho adaa laga rabo marka hadda inaad samaysid okay ko waxa leeyahay kana shaqada ka bilaaba kan way kala waxyeelsiin soo ma hagaaji okay marka hagaajina waxa leeyahay control shift g marka noo escape iska leeyahay kadib waxaan u baahanahay leeyahay geeskan kan hoose iyo kaas saddexda intaan ba wada qabo kadib waxa leedahay control d dheh geeskan ka qabo ama geeskan ka qabo inta kan marka inta ku keenay kadib waxa dhahdaa hadana kan iyo kan iga fuq intaan kala hadana soo celi oo control d dheh geeskan ka qabo inta ii keen marka okay intaas markii lagu keeno kadib waxa dhahdaa link inta ku jiro dooro oo hadda taa ka tagtay link and delete iska dheh okay kuwan iska jar marka okay kan frame ko sidaas oo noqon marka okay kuwan marka kan waxa dhahdaa kan iga bixi kana ii bixi afwan kan ku ugu daray iyo kan labadan wada baxade marka waxa ku soo haray kan Soomaa ka yara meesh ku jira asina bixi qaybtan sidaan ku ugu diyaarsan tahay marka la hafiirin waxa ku soo hartay qaybta marka qaybtan dooro waxa dhahdaa control shift g dheh marka dhahdid waxa u baahan tahay lenkan iyo lenkan geeska ah labadooda delete inaan dhahdid okay marka delete dhahdid kadibna kan iyo lenkan iga bixi ayagana kadib waxa dhahdaa hadana lenkan kalena iga bixi okay kadib kan
iyo kana isku xirmi doono labadan intersected okay nadiif ayaan ku sii wadi doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.